waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kala qaadan doonaa warbixinta kambaniga Tianis. magacaygu waa Maxamed Yuunus Axmed. waxaan rabaa inaan ku siiyo xogta kambanigan. intaana bilaabin waxaan kaa codsanaynaa telefoonkaaga silent gelisid, wixii su'aalna inaad dib iga weydiiso insha Allah. kambanigan wuxuu ku hayaa laba fursadood oo kala ah hanti iyo caafimaad. haddii aad ku fakaraysay inaad tabcato hanti fara badan, kambaniga Tianis waa meesha ka tabcan lahayd. haddii aad ka cabanayso cudurro adiga iyo faamiligaagana, kambaniga Tianis wuxuu ku hayaa daawooyin aad u tayo badan. haddaba waa maxay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee nolosha bini'aadanka haysta? haddii aad xalisid dhibaatooyinkaaga waaweyn, waxaad xalin kartaa dhibaatooyinkaaga yaryar. kambaniga wuxuu u aqoonsaday dhibaatooyinka waaweyn saddexdan: 1 shaqo la'aan, 2 faqiirnimo, 3 cudurro. haddaba saddexdan hadday noloshaada u midoobaan, waxaad ku jidhaa halis. sidaa darteed kambaniga Tianis wuxuu ku leeyahay saddexdan anaa waxaan u hayaa xal. 1 shaqo la'aanta waxaan ku siin doonaa shaqo aad kaga bixi karayso faqriga ama saboolnimada. sidoo keetana cudurradana kambaniga wuxuu u soo saaray daawooyin aad u tayo badan ayuu u soo saaray kambaniga. waa maxay hadafka nolosha aad ka leedahay? sidee doonaysaa noloshaada inay u ekaato 3 sano kadib? waxaad doonaysaa inaad faamili qurux badan samaysato, sida halkaa ka muuqata, inaad adduunka u kala gooshto, waddamo badan aad aaddo, sidoo keeta inaad xajka aaddo maadaama qof muslim aad tahay, iyo inaad qof sadaqada la baxa oo masaakiinta quudiya aad noqoto, sidoo keeta inaad guri hanti aad dhisato, iyo inaad noqoto qof bulshada saamayn ku leh ama bulshada dhexdeeda laga ixtiraamo. haddaba waxaa jira kambanigan dad Soomaaliyeed oo ka shaqeeya oo ka sameeya horumar, isbeddel nololeed, ka dhistay guryo, sidoo keetana shirkadda baabuur ee bixiso bilaasha ka qaatay iyo dalxiisyo. adna haddaad doonaysid sidoo keeta kambaniga diyaar buu ku leeyahay inaad fursadda ka faa'iidaystid. qorshaha faa'iidoodaha kambaniga Tianis. kambaniga waxaa la aasaasay taariikh ahaan 1995, wuxuu nidaamka iibka tooska ku soo biiray 1998. halkan waa xarunta ugu weyn ee kambaniga Tianis ee ku muuqata sawirkeeda, waxayna ka howlgashaa in ka badan 224 dal. sidoo keeta kambanigan waxaa ka howlgala 90 milyan oo macaamiil ayaa ka shaqaysa. kaalin saddexaad ayay kaga jidhaa shirkadaha iibka tooska ku shaqeeya. websitekeedu waa www.wfdsa.org. sanadkii waxay faa'iidaa 1.55 bilyan ayay shirkaddani faa'iidaa. haddaba shirkadda waxay ku leedahay 40 shaqo ayaanu qaban doonaa. 3 anaa diyaariyey, adigana mid ka mid ayaa lagaa doonayaa. 1 alaabtii aad gadi lahayd anaa diyaariyey ay shirkaddu ku leedahay. 2 goobtii lagu gadi lahaana anaa kuu diyaariyey, meel walboo adduunka daafihiisa ah 224 dal. sidoo kale qiimaha alaabtan aad siin lahaydna waa sixir fadhiya oo aan isbedbedelin, kor u kicin, hoos loo dhicin, oo hal meel fadhiya. adiga maxaa lagaa doonayaa? haddaba shirkadda waxay ku leedahay waxaan kaa doonayaa inaad alaabtan iyo xayeysiisid ood bulshada ka iibiso ood ii noqoto suuqgeyn. waxaad isbuucii iibiso, shirkadda waxay ku leedahay faa'iidadooda waxaan ku siin doonaa isla isbuucaas. sidee shirkadda loogu soo biiri karaa? haddaba 4 qodob samee baa yidhi si aad ugu soo biidho kambaniga Tianis. furo akoon, kadibna hel kaar ganacsiga ah oo ID kaar ah. sidoo keeta xafiis bilaasha iyo tababaro bilaasha ay shirkadda diyaar kula tahay. qodobka labaad, shirkadda waxay ku leedahay xirmooyinka shirkadda iibso si aad ID kaarka shirkadda u hesho. la wadaag bulshada ganacsigaaga iyo wax soo saarka shirkadda, hab fiisikaal ah iyo online-ba. qodobka afraad, fahansii bulshada ganacsigaaga ayaa lagu leeyahay, xafiiska ku fahansii iyo online-ka iyo sidoo keete gurigaagaba. haddaba kaararka la qaato, labadan kaar ayaa ugu muhiimsan. kaarkooda waa silfar, kaarka labaadna waa goldi. silfarka waxaad ku qaadan kartaa inaad iibiso $220 alaab u dhiganta, ama adigu aad iibsato ama aad iibisoba. sidaasaa kaarka silfar ku helaysaa, beresentigiisuna waa 15%. kaarka goldiga ah 440 alaab u dhiganta ayaad iibinaysaa ama iibsanaysaa, 18% ayaad sidoo keete wixii intaa ka dambeeya iibiso faa'iido aad ku yeelanaysaa. haddaba waxaan rabaa halkan oo meesha ugu muhiimsana inaan si fiican kugu sharaxo. tusaale ahaan, qof walboo ganacsigan ku soo biro waxaa waajiba inuu tiim samaysto. halkan waxaan ku arkaynaa isbuuca oo number 1, number 2, number 3 ah. waxaa ku xiga 2, 4, 8, 6, 16, 32 oo iyadana
tirada qof ee ganacsigan iskeenkeenaysa ee adoo aad ku soo darayso iyo waxaa ku xiga lacagta adiga sahalkaaga ku dhacaysa iyo darajooyin shirkadda ku abaalmarinayso. haddaba isbuuca koowaad shirkadda waxaad keentay 2 qof si ay u shaqaystaan sidaadoo keentay oo faa'iido doona. 2 qof aad shirkadda keentay maadaama ay shirkadda ka shaqaynayaan waxay qaadanayaan sidaadoo keentay kaararkii. qof walba markuu kaar goldiga qaato 2 qof waxay ka helaysaa $188 darajada shanaad shirkadda ayaad noqonaysaa. isbuuca labaad labadii waxay keeni doonaan min 2 sidaadoo keentay siday faa'iido u helaan. isla markaasi ay 4 qof ayay ku soo dari doonaan. 4 qofna kaar goldiga markay qaataan waxaad ku leedahay $88 darajada shanaad ee shirkadda ayaa welina ku jirta. isbuuca saddexaad 4 qof min 2 ayay keeneen, mid kasta min 2 keenay. sidaa darteed waxay noqonaysaa 8 qof. 8 qofi markay kaar goldiga qaataan waxaad ku leedahay $176 darajada lixaad ee shirkaddana ayaa tahay. sidoo kaleete isbuuca afaraad 8 waxay keeni doonaan min 2 16 qof ayay tiim ku soo dari doonaan. 16 qof markay kaar goldiga qaataan waxaad ku leedahay $352 darajada lixaad ee shirkaddana waa tahay. isbuuca lixaad 16 waxay keeni doonaan min 2 32 qof ayay noqon doonaan kooxda tiimka ay ku soo dareen. 32 qof markay kaar goldiga qaataan waxaad ku leedahay $704 darajada toddobaad ee shirkadda ayaa tahay. darajada toddobaad shirkadda markaa soo gasho shirkadda waxay kugu abaalmarin doontaa dalxiis free ah oo sanad walba shirkaddu ay dadka ganacsigeeda ka shaqeeya ay siiso adna aad ku guulaysan kadho. sidoo kaleete isbuuca lixaad 32 qof markay min 2 keenaan waa 64 qof. 64 qofi markay kaar goldiga qaataan waxaad ku leedahay faa'iido $1,408 darajada toddobaad shirkadda ayaa weli tahay. isbuuca toddobaad 64 min 2 keeneen waa 128 qof. 128 kaar goldiga markay qaataan waxaad faa'iido ku leedahay $2,816 darajada 8aad ee shirkadda ayaa tahay. darajada 8 ee shirkadda mar labaad shirkadda waxay ku siin doontaa dalxiis bilaasha oo dadka shirkadda ka shaqeeya ay siiso oo loo shaqaysto. iyo sidoo kaleete gaari qiimihiisu yahay $10,000 ayay shirkaddu bartaa ku bixisaa. sidoo kaleete African Share oo shirkad dad ka shaqeeya oo darajada 8 soo gala halkaa waxay ku qaataa mushahar 1% Afrika iib ka dhaca. saddexaas ayaad ka helaysaa. isbuuca 8aad 128 min 2 keeneen 256 qof ayay tirada ku soo darin ayay noqonaysaa. kaar goldiga ayay qaateen kadib waxaad ku leedahay faa'iido $5,632 darajada Bronze Lion ayaanad u gudbaysaa. Bronze Lion mar saddexaad waxaad ka helaysaa dalxiis bilaasha. sidoo kaleetana waxaad ka helaysaa gaari qiimihiisu yahay $15,000 iyo weliba global share oo Afrika maadaamaad awal qaadanaysay hadda waa global, waa heer caalami adduunka oo dhana oo 2% ah ayaad qaadanaysaa bil walba oo qof walba shirkadda ka shaqeeya darajada soo gaara ayaa hela. sidaa darteed warbixinta kambaniga Tiana sidaas uu ku egyahay. waad mahadsan tahay sida wanaagsan aad warbixinta u dhageysatay. wixii su'aalaad qabto waad weydiin kartaa walaalkay si aan insha Allah kaaga qanciyo maadaama aan ku yiri markaan warbixinta dhammeeyay ayaan wixii su'aalo ah kaaga jawaabaya.